had iyo jeer Somaliland dadka ka soo jeeday ee u ololaya midnimada hal la midoobo iyo hal isu yimaado yiraahdo waxa jirtay in deegaana gaar lagu eedeeyo oo waliba ay dacayadana isticmaalaan inta xisbiga kulmiye ku bahaysan hadda adigu waxaad soo jeedaa deegaanadii kulmiye macnaha ay isku celcelishan jiray maxay tahay dabeeshan dambe ee timi ee dadka adigu ka mid tahay iyo dad kale isku deegaan Maxamed Baashaaj Xasan oo la naxariisay geeriyooda ka mid yahay oo waliba isagu SNMT ururkii goostay Somaliland ka mid ah maxay tahay isbedelkan iminka jira iskuulada wallahi horta mid uma haysto reer iyo qabaa'il laakiin waxaan u haystaa inay fikir tahay fikirka iminka dadka soo fahmaya ku cusubad ka mid yihiin secondly kugu daro dadku aqli bay leeyahay mesela anigu reer Burcaan ahay burco 1988 waxay ahayd magaalada saddexaad ee Soomaaliya ugu weyn iskuulada ugu badan bay lahayd airportka ugu weyn bay lahayd magaalada ugu dhaqaalaha badan Soomaaliya oo dhan bay ahayd waxaan maranay wasiirka hore waa dhageysatay bangiga burcoynta laga bixiyo 18 gobol kale laga bixin jirin seelada ugu weyn geeska Afrika ee lahayd maantana waa tuulooyinka tuulo walba diyaarad baa tagtay waligaa ma maqashay burca diyaarad tagtay dadku isweydiinayaan ceerigaabo Xuseen Ceelaaba Faahiye Ilaahay naxariiste oo wasiirka qorsheynta ahaan jiray wuxuu igu yiri 1987 mashruuci ugu weynaaye Afrika sanaag loo qoondiyay European Union of Ingiriisian oo loogu talagalay inta bilyan isku sheegay garan maayo waxaanan weliga maskaxdayda oo loogu talagalay shaqo abuurka ugu weyn ee Soomaaliya inuu ka dhaco maantana sanaag iyo ceerigaabo xaaladeedu wad ogtahay iyo xiis iyo mayd oo dhulkii loogu talagalay inay jannooyinka Afrika noqdaan sida Indonesia iyo Malaysia ay noqdaan dadku sool dad ay weydiinayso waxay ahayd center dhaqaale iyo xoolo iyo hawdba marka waa laga yaabaa in sentence yiraahdo dadku ilaa waxay cost benefit bay wax leeyihiin khasaariye faa'iido war horta dagaalkii ugu badnaano iyagu ku dhacay dadkan tog dheer iyo sanaag iyo sool iyo ereyadan ka soo jeediyay hawd iyo saaxil baray marka hadalkaaga waxaan ka fahmay waxa laga yaabaa marka dadka sheekaysanaysan inay isweydiinayaan oranayaan shalayto halkaasaynu maraynay dawladii federaal ee dawladii Soomaaliya madaxda ugu badan bay ku lahaayeen iyaga ugu waxaan maleynaya tog dheer wuxuu ku lahaa laba madaxweyne ku xigeen iyo 9 wasiir ayay ku lahaayeen hatta marba maayirka Muqdisho lahaayeen marka 100 su'aalood waa laga yaabaa inay inta isweydiiyaan yiraahdaan war dalkan ma malahay inaga uu inaga burbura waayahay hadalkaaga waxay iga muuqataa in Somaliland gudaheeda aad leedahay cadaalad darro ka jirta iyo qaabkii loo qaybsanayay ilaahay dhaqaalaha iyo mashakilka kaga jira masaas adigu jeeda mashakilka kaga jira sidee wax u dhacay marka deegaanada marka maya la waxa la oran karaa magaalada saddexaad bay ahayd burco ee Soomaaliya ugu weyn Kismaayo la barbar dhigi jiray waan ku soo waday laakiin waxay burco kaga duwaneed Kismaayo basaska ku badnaa dadka ku badnaa xoolaha ku badnaa waxna Kismaayo ka bilay maanta waxa laga yaabaa burco inay tahay magaalada deemsaad adigu daadaa garanay marka runtii dadku ila aqli bay leeyihiin waxay soo oranayaan xagga ku socotaa marka intii yarada la sugeysay deegaana gaaraba maalaya ayaa leedahay waana yiraahdaa de garantiin miyaad haysataa hatta dad siraahdo halkan intan baad soo ururi inta lafteedu inay cadaalad darro kala tirsato wuxuuna waxayba ku qurux badan tahay guud ahaan rule of law dastuur iyo wax loo sameeyay iyo cadaalad dayaco dushu ka muuqda magaalooyinku ka muuqda deegaanku ka muuqda tacliintu ka muuqda noloshu ka muuqda shaqo abuurku ka muuqda marka Somaliland ba u siman dayaca mise waa lagu kala badan yahay heestii daahagaas ma dhageysan ahayd buurta sheekh soo dhaafay wadaaba suugaanta iga badin jiray marka dad waxay heestaas waxay ku jirtay buurta sheekh wixii bari ka xigay inay aad u dayacan yihiin runtii